بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal kulanti wanaagsan meel kastoo joogtaan kusoo dhawaada barnaamij aan uga hadlayno heshiiska Soomaaliya iyo Turkiga dhex maray ee la xiriira arrimaha difaaca nooca heshiiskaasi ee Soomaaliya iyo Turkiga ay galeen heshiiskaasi ma yahay midkii Soomaaliya iskaashi buuxa ay Turkiga kaga heli lahayd mase waa mid la mid ah heshiisaadkii horey Turkiga iyo Soomaaliya u dhex mari jiray waxaa isbedel oo dowladda Soomaaliya ku soo kordhinayay heshiiskaasi dowladda Turkiga ay la galeen sidoo kale muxuu geeska Afrika ku soo kordhinayay heshiiskaasi hadalhayn badan oo la xiriirta in heshiiskaasi uu noqon doono mid Soomaaliya ka caawiya in badeeda loogu difaaco arrimahaas ayaan insha Allah daawadayaal ka hadli doonaa ee mar kale kusoo dhawaada Caalam Media 24 haddii aad nagu cusub tahay YouTube-ka subscribe noo saar hadaad hore noola joogteen fiidiyoga noo share garee xilli Soomaaliya dhawaan laga qaaday cunaqabatayntii dhanka hubka saarneyd muddo badan lana aaminsan yahay in dowladda Soomaaliya ka hor istaagtay heshiisaad badan oo wadamada caalamka ay la geli lahayd iyo si la mid ah hubkii ay ku difaaci lahayd wadanka sidii ay ku heli lahayd ayaa dhawaan waxaa soo baxay in dowladda Soomaaliya heshiisyo ay la gashay dowlado waaweyn oo caalamka gaar ahaan dowladda Turkiga oo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo halkaasi ku sugan la tilmaamay in heshiisaad la saxiixday wasiirka gaashaandhigga dalka Turkiga iyo si la mid ah hoggaanka ciidamada wadankaasi wasiir Jaamac oo weli ku sugan dalka Turkiga ayaa waxaa soo baxay hadalhayn badan oo la xiriirta nooca heshiiska Soomaaliya iyo Turkiga ay galeen inkastoo si dhab ah loo faahfaahin nooca heshiiskaasi uu yahay kusimaha wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ana wasiir dowladda wasaaradda arrimaha dibadda Cali Balcad oo arrimahaasi wareysi ka siiyay telefishinka dowladda Soomaaliya ee SNTV ayaa waxa uu sheegay in heshiisyadaasi la horgeyn doono baarlamaanada Turkiga iyo si la mid ah Soomaaliya halkaasna faahfaahin buuxda iyo nooca heshiiskaasi uu yahayna lagu soo bandhigi doono laguna ansixin doono wararka soo baxay ayaa sheegaya in dowladda Turkiga ay Soomaaliya u ballan qaaday inay garab istaag buuxa u sameyn doonto dowladda Soomaaliya hore dowladda Masar ayaa dowladda Soomaaliya ugu ballan qaaday in garab istaag buuxa siin doonto haddii ay dhacdo in xuduudaha iyo madaxbannaanida Soomaaliya lagu soo xadgudbo hadalkaas oo la xiriira khilaafka ka dhaxeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya ee arrimaha badda ku saabsan waxaana la ogyahay in Masar iyo Itoobiya sidoo kale khilaafku ka dhaxeeyo la xiriira biyaha webiga Niil heshiiskaas dhex maray wasiirada gaashaandhigga Soomaaliya iyo Turkiga wixii ka dambeeyay wasiirkeena gaashaandhigga Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac wuxuu booqasho ku tagay warshadaha difaaca dalka Turkiga taasoo fasiraad gaar ah ka bixinaysa nooca heshiiska Soomaaliya iyo Turkiga ay galeen Turkiga waxay ka mid ahaayeen dowladaha Soomaaliya horeba u garab taagnaa waxayna dhiseen tababaro xooggan ay siiyeen ciidamada loo yaqaan Gorgor oo ka mid ah ciidamada militariga Soomaaliya qaybooda kala duwan sidoo kale Turkiga wuxuu Soomaaliya ku leeyahay xarun militari oo ah mid ugu weyn ee caalamku ku yeeshay wasiirku sidoo kale waxa uu tagay xarumaha tiknoolajiyadda ee dalka Turkiga taasoo sidoo kale loo arki karo inay qayb ka noqon karto arrimaha tiknoolajiyadda ciidanka inay garab ka siin karaan wararka soo baxay ayaa sheegaya in dowladda Turkiga Soomaaliya u soo bandhigtay inay iibsadaan hubka dalkaasi Turkiguna sidoo kale uu siin doono deymo dhanka militariga iyo si la mid ah deeqo militari oo dowladda Soomaaliya ciidankeeda lagu kaabi doono dowlado badan oo Turkiga hore u garab istaagay sida Liibiya Azerbaijan ayaa ku najaxay garab istaagga dalka Turkiga sidoo kale tan Soomaaliya waxay safka hore uga jirtaa wadamada baahida badan u qaba garab istaagga dalka Turkiga daawadayaal intaas ayaan qodobkii koobnaa aan uga hadlaynay heshiiska dhex maray Soomaaliya iyo Turkiga iyo nooca heshiiskaasi uu yahay ku saafmeerayna wixii faahfaahintan hayna ka dheeriya heshiiskaasi ka soo baxana barnaamijyada dambe ayaad kaga bogan doontaan